إبراهيم حاجي موسى وعيس horta nin suxufiye buu ahaa raggii naga horeeyay buu ahaa wuxuu sheegay inuu ku dhashay magaalada Berbera 1953 iskuulka hoose iyo dhexe wuxuu ku dhamaystay magaalada Laasada Cawo iyo magaalada Sheekh ka bacdi wuxuu u wareegay Muqdisho dugsigii banaadir ee caanka ahaa ee soo raaci jiray marka la eego Sheekh iyo Camuud ee xamar ku yaalay ayuu ka baxay 1971 kabacdina wuxuu galay macadkii tababarka militariga ee xalane ee qof kasto iska dari ka baxa uu gali jiray dabadeetana wuxuu ku biiray wasaaradii warfaafinta qaybta qoraalka wuxuu ahaa suxufiyiintii farakutiriska ahaa ee nasiibka u helay inay soo saaraan jariiradii ugu horeysay ee ku qoran afka Soomaaliga ee xigta Oktoobar loo bixiyay 1973 waxa weeye sanad kadib markii afka Soomaaliga la qoray ee 27 oo dadweynuhu aad ay u xiiseynayeen waxa ku qoran maaha laakiin waxa weeyaan jeeriyad aad afkaaga ku akhrisanayso islaanta tamaanada ibinaysa akhrisanayso ayaa ahayd Ibrahim Xaaji Muuse dabadna Saudi Arabia ayuu dhoofay Saudi Arabia waxa uu ka tagay dabadna xagga SNM oo qaybtii markaa ugu horeysay saraakiishii ugu horeysay oo nasiib wanaagde Maxamed Kaahin uu inagala joogo oo talaabay afartii sarkaale ugu horeeyay oo Maxamed Kaahin oo kamid ahaa ayuu ku biiray 31 bishii January 1982 Maxamed Kaahin Aadan Shiine Axmed Dhagax iyo Saleebaan Aadan Saleebaan saddexdii kale way dhinteen Maxamed bay naga nool halgankiisaas ugu jiray markii la soo laabtay 1991 la xoreeyay dalka wuxuu noqday agaasimihii guud ee ugu horeeyay haamaha shidaalka ee magaalada Berbera dawladii Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur ilaahay u naxariiste kadib dawladii Cigaal Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu noqday xoogayihii gaarka ay ugu horeeyay ee madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal inuu u shaqeeyo hay'adaha miina baarka ayuu u shaqeeyay muddo dheer ka bacdi hay'adii Samatalis ee xuquuqul insaanka ayuu agaasimo ka noqday ka bacdi wuxuu tagay Djibouti wargeyskii ugu horeeyay af Soomaali ku hadla ayuu ka soo saaray waayaha geeska Afrika la oran jiray intii dambana wuxuu iska joogay magaalada Hargeysa oo xanuunsanayay sanadii ugu dambeeyay ilaahay u naxariisto waxaananu aad ugu mahadnaqaynaa oo in badan ii sheegay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha oo inta uu xanuunsanayay ka warhayay dadka markaad xanuunsay markaad baahata la kala bartaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh